Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal runtii aad u mahadsantiin sida wanaagsan ee aad ii sugteen safar yar oo 4 maalin ah iyo sidoo kale xanuun hargab ah ayaa isku ka darsamay hargabkana hargab iska caadi ani hargab waxba igama taro laakiin kan wuxuu ahaa mid codka itira ilaa haddana codkayga saxda ahaa muusan soo noqonin laakiin waxaan isku dayaa inaan dadaalo si aan cashirka idin soo gaarsiiyo idinkana aad cashirka u hilmaamin oo aad u hilmaamin channelka inuu channelkeena yahay iyagoona dulqaata inta yartaan idinka maqnaa haddii aan idinka maqnaado laba lee waaye ama waan xanuunsanahay oo ilaahay xanuunka ha naga qabto ama shaqayra ku mashquulsanaha oo shaqa ku mashquulsanaha marka waad mahadsantiin haddii aan gudagala cashirkeena waxaan hore usoo baranay noun oo ahaa kii noogu horeeyey pronoun iyo verb okay nounka waa magacee pronounkan waxaa waaye meesha nounka in lagu bedelo ayaa loogu talagalay pronoun replaces the noun so verbna sidoo kale haddaa xasuustaan waxaan kusoo baranay waxa la yidhaahdo verb oo ah ficil ama ficilka ku dhex jira jumlada so hadda waxaan gudgalaynaa adjective adjectiveka marka muxuu yahay adjective describes a noun adjective describes a noun wuxuu aad u faahfaahinaa ama faahfaahin dheeraad naga siinayaa nounka so noun maxaa dhahnay waa magacee tusaale ardayaa tahay student so studentiga muxuu yahay marka waa student hard worker ah ama student the student is a hard working he is a hard working student so he thus is meesha waxaa loo isticmaalaa he tusaale waxaa loo isticmaalaa pronoun so he haddii aan dhahno marka haddii aan isticmaalayno ama tusaale waxaa isticmaalaynaa cali camalaa isticmaalaynaa cali is a good student so cali waa noun so cali marka oo qof ah is a good student so good wuxuu noqonaa markaas good wuxuu noqonaa adjective inaan fahantina rajaynaa wuxuu aad iyo aad faahfaahin dheeraad nooga siinayaa nounka I think inaa intaas ila fahanteen ayaa rajaynayaa okay so haddii aan faahfaahin dheeraad inka sii marka waxay noqonaysaa adjective is a word that tells more about noun wuxuu waxyaabo badan naga barayaa nounka adjective tells more about a noun wuxuu waxyaabo badan naga barayaa nounka okay sida sizeka nounka uu yahay colorgiisa number inta tiro uu yahay quality tayadiisa okay the kinds inta ay yihiin uses macnaha inta ay u kala baxaan adjectiveka iyo uses waxyaaba loo isticmaalo okay number 1 waxaa marka oo adjective ah descriptive wuxuu ku tusinayaa ama wuxuu kaaga sheegay description waaye wuxuu waxyaabo badan kaaga sheegayaa nounka sida nounkaasi big mid weyn waaye small mid yaris waaye red mid guduud waaye happy mid faraxsan waaye tusaale a big house okay big waa mid weyn house na guri so nounka uu faahfaahin dheeraada kaa siinayaa so adjective marka muxuu noqonaa adjectiveka wuxuu noqonaa markaasi big okay so descriptive means mid adiga macnaha ku saabsan nounkaasi sida saxda u yahay ayuu kugu soo bandhigaa okay tusaale waxaad aragtay qof guri weyn aragtay so you say a big house waxaad aragtay masdheer aragtay a long or a huge snake so huge kaas wuxuu noqonaa markaas descriptive oo wuxuu waxyaabo badan kaa barayaa shaygaasi nounkaasi okay quantity waa tiro okay quantity waa tiro ama cadad ama tiro tirada maxay noqon kartaa marka some okay some kuwa in yaroo iska kooban many kuwa badan 3 saddex few means wax ka yar some macnaha some is like 1 2 3 wax saddex ka badan ama 4 ka badan ama 5 ka badan laakiin few means saddex wax ka yar ama 2 ha ahaadan ama 3 ha ahaadan example 3 books saddex book okay 3 books saddex book possessive as adjective okay possessive marka possessive sidoo kale wuxuu hore aan usoo baranay possessive means possession lahaansha okay marka maxaa ku jiri kara markaas my book my bag your phone is okay jumlada saxda waxay noqonaysaa marka my book is my bag is small
okay so small kaas adjective noqonaa so my bag is small I think ina isla fahanay meeshaas ayaan rajeynayaa okay haddii aan hore u socono marka so kaas wuxuu ahaa possessive okay maxaa noogu xiga marka demonstrative as adjective demonstrative marka wuxuu noqonaa sida kii hore usoo baranay oo kale demonstrative wuxuu noqonaa mid waxyaabaha soo bandhigaya this car is good this car is big this car is small that car is brown that car is red that car is black so wuxuuna barayaa tusaale nounka ayuu wuxuu noogu darayaa demonstrative sidoo kale wuxuuna siinayaa adjective wuxuuna siinayaa okay so haddii aan isku dayno marka meeshaan aan isticmaalno the car or this car is good this car is good so this car is good wuxuu noqonaa markaas wuxuu noqonaa this waa demonstrative car noun waaye goodna waa adjective so marka la isku daro waxay noqonaysaa markaas demonstrative as adjective ay noqonaysaa jumladani okay so short or ruleka ama sharciga loogu dhaqmo marka aad order of adjective isticmaalaysid si iskugu xigaan macnaha jumlada iskama qoranaysid oo ma diyaarinaysid so macnaha iskama qoranaysid tusaale opinion ka bilaabaysaa opinion maxaa marka opinion waxa waaye maxay kula tahay opinion fikrad ahaan maxay kula tahay marka koowaad opinion fikradaada maxaa waaye size shaygan marka dhererkiisa ama balaciisa muxuu yahay ma dheer yahay ma gaaban yahay ma buuran yahay age da'diisa marka okay shaygan da'diisa ma qeyn kartaa short tusaale shaygan waa shay wayeela ama shaygan shay small oo young waa shape shay ahaan ma afar geesa ma sambuus ahaana ma circle color ma balaaga ma white ma red ma blue origin intuu ka soo faracmay then material shayga muxuu ka samaysan yahay then waxa u dambeynaya noun marka qasab ma ahan inay saa iskugu daba xigaan kulli waxa laga yaabaa inaad saddex ka soo qaadato okay laakiin sida hadda meeshan ku qorta waxa you don't need all macnaha ma u baahnid intaan dhan inaad jumlo ka samaysid si aad u isticmaasho order of adjective this helps when using money tan macnaha waxay kaa caawinaysaa bisa markii waxay jumlo dheer aad macnaha aad wax ka sheegaysid ama aad diyaarinaysid tusaale a beautiful small all round brown wooden table waa mid qurxoon oo yar oo wayeel oo old macnaha oo mid hore ahaa round oo circle ahaa brown oo kafee ahaa wooden alwaax ahaa table miis so miiskan waxaa lagu qeexay intaan hadda aan soo dhigan lagu qeexay okay so haddii aad marka dib u noqon markaas a beautiful waxaa idinka tirayaa tan haddii aan dib ugu noqon marka waxay noqonaysaa a beautiful mid qurxoon small oo yar old oo da round oo circle brown kafee wooden alwaax then table maxaa loo dhamaystay marka nounkii ayaa lagu xiray so muxuu ka bilowday opinion muxuu ku leeyahay mid qurxoon maxaa ku xiga small mid yar size waa age old waa then shape round waa circle rectangle triangle color maxaa la yidhi brown oo kafee ama ciid origin intuu ka faracmay wooden waa alwaaxi ama geedu ka soo faracmay table noun okay ina isla fana rajaynaa so taasi waa meeshii aan ku joojinaynay intay u kala baxaan mise qaabka loo isticmaalo adjective okay example tusaale marka marabay muuqaalka inuu sii dheeraado so example a small cart waxaa waaye gaari dameer so the cart igu qaata sidoo kale loo isticmaal karaa laakiin hadda jumlad maxaa noogu qoran cat a small cat waa yaanyoor yar two apples waa laba xabo tufaaxa her new phone is expensive telefonkeeda cusbaa
وحواي مد خالئة new مركب حنقولنا new حنقولنا adjective okay short exercise مركب short exercise okay سؤال شو جوهر اسم مركب add an adjective سؤاشن قيبت بنان وحد قدرتها adjective to make a sentence adjective أقدر يسا قرئة هون معناها house أو دنبه أو قرئة سي معناها هو نقطة جملة ما يسترن أنا أهان وحد إيه كره an old house قرئ دقة an old house قرئ دقة هذا ما حد إيه كرتا أنا وحاول جاوبت هذا الغربة so قيبت كومنتري نوغر حدي أنت نزوجتي oo jawaabta soo qorto waxay cadeynaysaa inaan muuqaalka dhameystirtay waana kuma santa hadii intaan soo gaartay okay su'aasha labaad put this in a phrase intaana isku dareysaa waxa laga rabaa in ay ka soo baxdo jumlad dhameystiran anagoo isticmaalayna kii waxa xasuustaan order hadii aan dib ugu noqono waxa xasuustaan qaybtan ahayd order of adjective adigoo size opinion age shape color origin material iyo noun intan aniga ma muku kala sheegay intay kala yihiin laakiin adiga ka rabaa so waxa ka bilaaban kartaa big ka bilaaban kartaa old ka bilaaban kartaa arad macnaha waa inay raacdaa sharciga meeshan ku soo baranay rule-ka meeshan aan ku soo baranay waa inay raacdaa okay so big wax weyn waay old da red gaduud ah ka gaari waay so a dash lagu dhahay marka ka dashan lagu sii jawaab laga rabaa ka adigoo marka intaan si toosan u gelinaya bartaan si macnaha ugu dambeeya ka ay ka bilaabato intaan kale waxa gelinaya kadib maxaa dhameystirmaya waxa u dambeynaya ka hadii marka aan idin banayo meeshan ina si fiican u aragtaan ayaan ka rabaa okay so waxa idin ka rabaa marka ka ka bilaabaysa waxa u dhaxeeya intaas ka u dambeeya so old big old red ka red sorry saddexdan waxaan ka rabaa inaad u isticmaashaan qaabka saxda ah idinkoo ka dhigaya one phrase hal jumlad oo dhameystiran muuqaalkan halkan ayaan ku soo koobaya xogaa waan cajisanahay marka mana rabay inaan si dheereeyo ana xogaa waa qufaca iska ilaalinaya maanta dhan marka waan dadaalayaa inaan muuqaalo badan idin soo badiyo oo aan jumlooyin badan casharo badan idin soo diyaariyo insha Allah inta muuqaalkiisa ku xiga aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh